ilaahay ha u naxariistay abwaankii weynaaye maxamuud cabdilaahi ciise sengub ayaa sabtidii aynu ka soo gudubnay waxa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa kadib markii isaga iyo xaaskiisu ay ka soo noqdeen magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama oo ay ku soo qaateen aakhirkii bishii Ramadaanta waxaana qaliin loogu sameeyay isla cisbitaalkaasi maalintii Isniintii khadiija daahir axmed oo ka mid ahayd laba xaas oo marxuumka sangubu qabay ayaa telefishinka Universal uga warantay geeridiisa. bismillah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut ilaahu naxariisto abwaankii qaranka Soomaaliyeed abwaankii ummadda Soomaaliyeed anigu waxaan ahay magacaygu khadiija daahir axmed waxaan ahay xaaskiisa waxaan ka soo baxnay xamar 25kii bishii Ramadaan ilaa 25kii ilaa maalintii sabtida ahayd waxaan ku sugnayn Makka al-Mukarrama Imraan oo nimi maalintii sabtidii baan ka nimi toos isbitaalka loo dhigay shalay Isniin ahaydna waa la qalay gelinkii dambe saakana waqtigiisiba inta ku ekaa saas abwaankaasi ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan uga tacsiinayaa awlaadiisii adduunka dacaladiisa ku kala nool iyo xaaskiisii weynaa Aamina iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo Soomaali weyn meel ay joogtaba inta af Soomaaliga ku hadasha ayaan uga tacsiinayaa inay geeridii xaq ahay timi inay maanta waqtigiisii inta ku ekaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo. abwaankii weynaaye maxamuud cabdilaahi ciise sengub ayaa waxa lagu qiyaasayaa in sanadkii 1943 uu ku dhashay magaalada Dhagaxbuur ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. dadka aqoonta dheer u lahaa abwaan sengub ayaa waxa ay sheegeen in fanka uu ku biiray isagoo aad u daayar waxaana uu ku bilaabay ciyaarta dhaantada oo aad iyo aad ugu soo caanbaxay. bilowgii sanadkii 1961 ayuu ka tagay dalka Itoobiya oo waxa uu qabtay magaalada Hargeysa kadib markii muddo kooban uu joogay ayaa waxa uu uga sii gudbay magaalada Muqdisho. waxa abwaanku caan ku ahaa samaynta riwaayadaha iyo curinta heesaha waxaana uu lahaa heeso iyo riwaayado fara badan oo dhammaanba geeyada Soomaalida aad caan ugu noqday. riwaayadaha sida weyn loogu xusuustay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye abwaankii weynaaye maxamuud cabdilaahi ciise sengub waxa ka mid ahayd riwaayadihii qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xuud baa liqay jacaylkii iyo riwaayadii xorriye ninkay ah guursado iyo riwaayado kale oo aad iyo aad caan uga noqday dhammaanba geeyiga Soomaalida. kadib markii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1991 ayaa abwaan sengub waxa uu tagay dalka Kenya halkaas oo muddo uu ku noolaa markii dambena waxa uu uga sii gudbay dalka Mareykanka. abwaanku sanadadii dambe waxa uu ku noolaa meel ay ka mid tahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo magaalada Muqdisho oo sanadahan dambe uu joogay. intii uu ku noolaa qurbaha abwaanku marnaba kama madhnayn xagga suugaanta iyo fanka Soomaalida waxaana uu sameeyay riwaayadii filimka laga dhigay ee caanka noqotay ee Qabyo oo isaga iyo fanaaniin kale oo caan ay ka sameeyeen dalka Mareykanka. abwaan sengub ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye waxa intii dambena uu ahaa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaalida. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye abwaan sengub ayaa waxa uu ifka kaga tagay laba xaas iyo dhowr iyo 20 caruura oo ku kala nool daafaha adduunyada. ilaahay ha u naxariistay abwaankii weynaaye maxamuud cabdilaahi ciise sengub ayaa sida ay sheegtay xaaskiisa khadiija daahir axmed waxa maalinta sabtida inagu soo aadan lagu aasi doonaa magaalada Jigjiga oo loo qaadi doono meydkiisa. dad badan oo Soomaaliyeed bay wada shaqeeyeen soo wada noolaayeen ilaahay waxaan uga baryayaa isagana naxariista janno firdawsa inuu ilaahay ka waraabiyo. dadkii ay wada shaqeeyeen haday wax kala gaadheenna waxaan ka codsanayaa iyagana inay iska cafiyaan sidaas walaalgeeradaasi ku dhacday xaq weeyaan. marka hadii Allah idmo sida la sheegay waxa laga qaadayaa halkan meydkiisa maalinta Jimcaha waxaana lagu aasi doonaa magaalada Jigjiga ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii iyo madaxdiiba joogaan. marka sidaas ay noloshiisa ku soo dhamaatay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut.
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo abwaankii weynaa ee caanka ka ahaa geyiga Soomaalida ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub oo maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa. Cabdisalaan Hereri, Universal TV, Addis Ababa.